kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halkaad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal beeleed khasaare geystay oo hadda ka qarxay deegaanka Baraag 3 jahwareer ka tagan degmada Sayla iyo xildhibaan ka tirsan beesha Ciise oo ka hadlay dilkii foosha xumaa ee ka dhacay deegaanka Indabiraale dowladda Koonfur Galbeed oo beenisay in garoonka Buur-Hakaba loo xiray arrimo siyaasadeed Ilhaan Umar oo weerar ku qaaday khudbadda Trump iyo fadeexada Epstein oo mar kale qaraxday JF-17 oo Suudaan la geeyay iyadoo Soomaaliya ay dhawaan helayso Mexico oo khasaare culus wajahday qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan u diyaar garoowa iyagiyo faahfaahsan rabtaa inaad la jaanqaado xawaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhameystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Shantraal asugin maanta soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda waxaynu ku bilaabaynaa maanta dagaal beeleedo khasaare geystay oo hadda ka qarxay deegaanka Baraag 3 dagaal xooggan ayaa hadda ka socda deegaanka Baraag 3 kaasoo u dhexeeya beelo ka soo kala jeeda degmooyinka Cadaado iyo Cabudwaaq dagaalka ayaa la sheegay inuu sababay khasaare inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin karin tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama rasaas weli si xooggan u socoto siday dadku deegaanka inoo xaqiijiyeen xaaladdu waa mid kacsan waxaana jirta cabsi ku saabsan in dagaalku sii fido dagaal beeleed ka socda 3 baraagood maleeshiyaadka Isaya ayaa la sheegay inay ka soo kala jeedaan deegaanka Dibra iyo Cabudwaaq ilaa iyo hadda ma cadda sababta tooska ee hurinaysa colaadan xilli ay deegaanadaasi la daala dhacayaan xaalad abaareed oo sii cakramaysa jahwareerka ka taagan degmada Sayla iyo xildhibaan ka tirsan beesha Ciise oo ka hadlay dilkii foosha xumaa ee ka dhacay deegaanka Indabiraale xildhibaan ka mid ah golaha deegaanka degmada Sayla kana soo jeeda beesha Ciise ayaa maanta isagoo shir jiraa'id qabanaya ku hadlay hadallo iskhilaafaya oo ku saabsan labadii marxuun ee safarka ah ee jabhadu beesha Ciise Indabiraale ku dileen xildhibaanka ayaa mar sheegay inaynan beesha Ciise dilka labada wiil kas u ahayn heshiisna ku ahayn haddana xildhibaanka ayaa mar kale sheegay inuusan garanaynin cidda soo dhexgelisay iyo gacanta ka dhacday labada marxuun xildhibaanka ayaa u dooday jabhadda labada marxuun dishay kuwii ku xirnaa magaalada Hargeysa dadka u kuurgala arrimaha gobolka ayaa hadalka xildhibaanka ku tilmaamay mid xaaladda ugu sii daraya xilli la sugayo colaad loo helo dhibanayaashii la laayay dhanka kale dowladda Koonfur Galbeed oo beenisay in garoonka Buur-Hakaba loo xiray arrimo siyaasadeed warar hore oo soo baxaya ayaa sheegaya in garoonka degmada Buur-Hakaba loo xiray sababo siyaasadeed hase yeeshee dowladda Koonfur Galbeed ayaa si cad u beenisay arrintaasi waxayna ku sheegtay in xiritaanku uu ku dhashay cabashooyin ay soo gudbiyeen shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala garoonka dowladdu waxay tilmaantay in tilaabadan lagu xiray garoonku ay tahay mid farsamo iyo maamul la xiriirta isla markaana aan wax shaqo ah ku lahayn arrimo siyaasadeed dhanka kale maamulka degmada Buur-Hakaba ayaa ka hadlay arrintaasi iyagoo sheegay in xitaa haddii dowladdu ay go'aansato inay dib u furto garoonka uu weli xirnaan doono maamulka degmadana maadaama uu maamulku uu sidaasi go'aamiyey
hadalkan ayaa muujinaya khilaaf u dhexeeya dowladda iyo maamulka degmada oo ku saabsan cidda leh go-aanka kama dambeysta ee furitaanka iyo xiritaanka garoonka. ilaayo haddana ma jirto war rasmi oo kasoo baxay dhinacyada oo lagu xalinayo ismaandhaafka taagan. ilhaan cumar oo weerar ku qaaday khudbadii Trump. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka ku qaaday Soomaalida isagoo khudbad ka jeedinaya aqalka Koongareeska. waxa uu bulshada Soomaaliyeed ee dalkiisii joogta gaar ahaan Minnesota ku eedeeyay inay ku kaceen musuqmaasuq. Donald Trump ayaa xarunta Koongareeska ku dhex sheegay in dagaalka dowladdiisu ay la gashay arrintaasi oo si toos ah u taabanaysa Soomaalida uu u xilsaaray ku-xigeenkiisa si uu u hogaamiyo howlgalladaasi ka dhanka wax isdabamarinta sida uu yiri. carabka ayuu ku dhuftay inuusan jirin tusaale musuq oo ka daran kan ka dhacay Minnesota. waxa uu ku goodiyey in maamulkiisi uu qaadayo tillaabooyin adag oo wax loogu qabanayo arrintaasi oo bermadow ku noqotay Mareykanka sida uu hadalka u dhigay. Trump ayaa amar ku bixiyey in xoogga la saaro la dagaalanka soo galootiga sharci darrada ah haddii uu ku tilmaamay inay ku caddaato musuq iyo kuwo kale oo horumarka dalkiisii dib u dhigaya. rag uu ku sheegay inay ka tirsan yihiin ama yihiin burcadbadeed ayuu khudbadiisii ku shaaciyey inay gudaha dalka Mareykanka soo galeen, waxaana indhaha laga qarsan karin ayuu ku tilmaamay dadkaasi oo lacago badan ay dhaceen sida uu yiri. xildhibaan ilhaan cumar oo isku darsatay in asal ahaan ay kasoo jeedo Soomaaliya iyo in laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa ku qaylinaysay beenaale iyo ereyo kale oo ka dhan ah eedaha Donald Trump ee ka dhanka bulshada Soomaaliyeed ee gobolkaasi. xisbiga dimuqraadiga ayaa Trump iyo xisbigiisii ku eedeeyay inay beegsanayaan bulshada horumarka ganacsiga gaarsiiyey gobolka Minnesota ee dhaqaale badan ka soo gala dowladdu. waxay ka digeen tillaabooyin ka dhalan kara howlgallada lagu beegsanayo dadkaasi. Trump iyo ilhaan ayaa isku karan waxay isdhaafsadayaan hadallo aan barxnayn iyadoo dhinacba dhanka kale uu ku dhaliilayo siyaasadaha adag uu adeegsanayo. waxaana marar badan madaxweynaha Mareykanka garab siiyey siyaasiyiin iyo xubno kale oo ku xisbiya. Trump iyo ilhaan ayaa xalay isugu jiray fagaarihii uu hadalka ka jeediyey Trump, waxaana ay noqotay mid si weyn looga hadlayo gudaha Mareykanka. weerar iyo weerar celis xoog leh ayay isu dhaafsadeen, taasi oo muujinaysa kartida in Trump isla durba iska difaacay isagoo hadalkiisii tarminaya. waa inaad ka xishootaa naftaada ayuu yiri Trump, laakiin ilhaan oo muuqaalka kasoo dhex muuqatay ayaa uga jawaabtay adiga ayaa dilay Mareykanka, waa inaad ka xishootaa ayay tiri ilhaan. hadalladan kan ayaa ka dhashay dood ku saabsan siyaasadda dibadda gaar ahaan dagaalada iyo habka Mareykanku ugu jawaabayo. tani ayaa muujinaysa kala qaybsanaanta siyaasadeed oo qoto dheer gudaha Mareykanka gaar ahaan xagga amniga qaranka iyo mas-uuliyadda Trump. JF-17 oo Suudaan la geeyey iyadoo Soomaaliyana ay dhowaan helayso. dowladda Bakistan ayaa si rasmi ah ugu wareejisay Suudaan qaybtii koowaad ee heshiis cusub oo ballaaran kaas oo ka kooban diyaarado dagaal, diyaarado aan duuliye lahayn iyo gaadiid dagaal oo gaashaaman. tilaabadan ayaa ka dhigan iskaashi militari oo cusub oo u dhexeeya labada dal. wararka la helayo ayaa sheegaya in Suudaan ay yeeshay 4 diyaaradood oo dagaal oo la isticmaali karo duulimaadyo fogfog, 6 diyaaradood oo fudud oo loo adeegsado sahmin iyo beegsiga bartilmaameedyada dhow, iyo ku dhawaad 7 drone oo casri ah. hubkan ayaa la sheegay inuu sare u qaadi karo awoodda howlgalka ciidamada Suudaan. tilaabadan ayaa loo fasiray dadaalo lagu xoojinayo difaaca Suudaan iyadoo dalkaasi uu wajahayo xaalad amni oo aan xasiloonayn, halka Bakistan ay sii ballaarinayso iskaashigeedii militari ee caalamka. dhanka kale waxaa heer gebagaba maraya heshiiska dowladda Soomaaliya ay kula soo wareegayso 6 diyaaradood oo ah nooca JF-17ka. diyaaradaha Suudaan la geeyey iyo kuwa Soomaaliya loo soo wadaba dhaqaalahoodii hal dowlad Carabeed ayaa bixinaysa. ugu dambeyntii Mexico oo khasaare culus wajahaysa, in ka badan 70 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen rabshadihii ka dhex qarxay Mexico, kuwaasi oo ka dhacay magaalooyinka Guadalajara, Mexico City iyo kuwo kale kadib howlgal ciidamada ammaanka ay ku dileen hogaamiyaha daroogada uga caansanaa ee Jalisco New Generation Center. Guadalajara
Guadalajara iyo guud ahaan gobolka ayaa noqday xarunta ugu weyn ee iska horimaadadu ka dhaceen, halkaasi oo koox hubeysan ay xireen wadooyin waaweyn, gubeen gaadiid, isla markaana weerar ku qaadeen saldhigyo ciidan. Magaalooyinka dalxiiska caanka kuwa dalka Mexico ayaa la geliyey heegan sare si loo ilaaliyo dalxiisayaasha, waxaana si ku meel gaar ah u hakaday qaar ka mid ah duulimaadyada iyo adeegyada gaadiidka. Safaaradda Mareykanka ee Mexico ayaa markii hore ku baaqday in muwaadiniinteedu guryaha joogaan, balse markii dambe sheegtay in xaaladdu ay isbedeshay, iyadoo garoomada diyaaraduhu ay dib u bilaabeen shaqadoodii caadiga ahayd. Madaxweynaha Mexico ayaa warbaahinta u sheegtay in dowladdu ay si buuxda gacanta ugu hayso xaaladaha, isla markaana rabshaduhu aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin martigelinta koobka adduunka 2026, iyadoo ballan qaaday in ammaanku dalka la xoojin doono si looga hortago qalalaase kale. Guud ahaan daawadayaal, waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa warkii aad kala socoteen waa Jaba Media. Tan iyo kulanti dambe waxay sila akhyaaray nabadgelyo.